حموغان مروة بيوتي and cooking حموغانين waxaad ka heli doontaa wax badan oo ku qanciya sida casriye fudud iyo subscribe korka lagu nadiifiyo qurxinta wajiga qadada iyo waxyaabo badan oo ku raali geliya xamoogaan oo ha ka maqnaan Marwa Beauty and Cooking. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان صحابتك وحل المروة بيوتي and cooking. وحن ليا صحابي مالين وناكسن عافماد إيه عند الريان دين رجينيا يا عباد السوبن انتا كبعدي وحن رجينيا سنان عافماد قبائنا اي وعافماد قبتان halkan waxaan ku haystaa digaag aan tirkiisa ka soo qaaday halkan waxaan ku haystaa vinegar khal qof walba sidoo u yaqaano dukaamada carabta ama dukaamada turkida dukaamada muslimiinta oo dhan buu yaala waa xalaal noocan macaanka ku darsadaan kulli taas ayaan ku dari doonaa waxoogaa aan badnayn. Allahumma salli ala Muhammad. maanta maxaa ka soo tuuri doontaa islaantii hay wadaa maanta alaabtan aan soo wadaa halkan waxaan ku daray liintaas ayaan isticmaalaa ay dukaan ayuu yaalaa dukaamada caadiga ah. halkan waxaa iigu jira toon filfil maraq digaag sinjibiil barbarooni cas huruud iyo rosemary shiidan oo budo ah intaas ayaan ku dari doonaa. Allahumma salli ala Muhammad. gacanta ayaan u qaadi doonaa hadii Allahu idmo iyo say isku soo baxdo isku soo noqod wanaagsan. asxaabay subscribe ta like ta comment ka hayga ilaawina waa dhiirigelin waa horumar. asxaabay ayaan idin salaamaya. asxaabay markii aan soo dhaxgeliyay sidaas ayuu soo baxay insha Allah bac ayaan ku xiri doonaa talaagada ayaan cabaar gashan doonaa hal saac oo isku soo noqon doonaa. بعدها دركتان ayaan korka kaga xidhay waa bacda khudrada lagu xidho talaagada ayaan saakul gelinayaa si aan ur iga yeelan talaagadu isku soo noqod wanaagsan. asxaabay halkan waxaan inoogu hayaa 4 xabo oo xabuuba waaweyn oo ka soo saaray talaagada qaybta barafka. Allahumma salli ala Muhammad. halkan biyo ayaa iyada halkaas ayaan ku guran doonaa insha Allah 2 minutes intaan basasha jarjaranayo oo isku soo noqon doona. basasha waan jarjartay sidaas ayaan u soo jarjartay 2 xabo basal waaweyn xabuubtii ayaan hadana gacanta u qaadi doonaa insha taas xabuubtii asxaabay waan soo dhilay waa ka galkeedii waa ka galkii saawartanba qolofkii oo dhan xabuubtiina waa taas 3 xababa insha Allah waan soo shiidi doonaa isku soo noqod wanaagsan. asxaabay halkan waxaan ku soo shubtay saliid digsiga waxaan rabaa inaan basasha ku shiisho hadii Allahu idmo بعد البصشة iyo sidii wax soo baxaan isla socod wanaagsan. asxaabay basashii wada aragtaan way ii soo casaatay waan ka guranayaa wakaas in yar baan ku yara celinayaa si aanay iiga gubanin wayna saa u kor taagnaataa. wataa basashii waan ka guray wad aragtaan hadda digsiga ayaan ku gelinayaa. halkan waxaa ii taala xabad kale oo basala oo si yar u jarjartay insha Allah taasna waan dalci doonaa isla naqdi. asxaabay halkan waxaa iigu jira biyo cad digsigan biyo cad ayaa iigu jira wax kale kuma shubin insha Allah bismillah kareem waxaan ku shubayo waan dilna wadaagi doonaa. halkan biyihii ayaa iigu jira halkanna waxaa iigu jira bariisan soo qasaasilay bariiskii wakaas dabkii ayaan soo saaray waxaan rabaa inaan 2 daqiiqo 5 daqiiqo 3 daqiiqo inta u dhaxaysa kariyo ka bacdina miiro isla socod wanaagsan. saxaabay basashii markii saa u soo saartay
marka ay saa u soo casaatay halkan waxaa ii taalla xabuubteeni misla ogeyn oon soo shiiday oon miiray iyo toon. allahuma salli calaa maxamed. intaasaan saa isugu afrogayaa oo isku soo dallacmi doontaa, biyo kuma shubin, yadaa isbiyeysay. isku soo noqod wanaagsan. sidoo kale halkan waxaa iiga jira milixdaa ayaan ku dari doonaa insha allah. wax kale kuma dari doono. weelkaan ku miirnaha ayaan soo diyaarsan doonaa. kuma darin qorfe iyo hayl iyo nagayaro toona. sababta aanan ugu darin waxay tahay caruur yaryar baan haystaa, kuwaasaa ii cunaya. sidaas ayaanan ugu samaynin, waayo afkayga dhuuntiisu taagisaa. kabacdi waan shiidaa, xaggan kale ayaan ku darsanayaa insha allah. way la arki doontaa. saxaaday bariiskeennii caddaa waa kaas. sidaas ayuu soo baxay markaan miiray. waa kulayl insha allah. waan isku soo noqon doonaa sidaan isagana u soo hagaajin doono. saxaabay halkan waxaan ku haystaa xawaashkii aan ku darsan lahaa dalac bilaashka. halkan waxaa iigu jira waxa weeyaan waxaasi kari, toon, hayl, khamuun, maxaa la yihahdaa geeda adari, dhagayare. intaasa isku jirta. halkan waa barbarooni iyo huruud. allahuma salli calaa maxamed. intaa ka bacdi halkan waxaa ku dallacmaysaa xabuubteennii ayaa saa weli usoo karaysa insha allah. gab ayaan ku siin doonaa xawaashaadka oo dhan ilaa iyo intay isku soo karaysa macal xawaashaadkeeda. toonta markii hore waxaan kusoo shiiday iyadana sidoo kale filfil. isla socod wanaagsan siduu soo baxdo. saxaabay halkan saliid ayaan inoo soo saaray. marka ay inoo soo diirto insha allah bismillaahi kariim digaageennii ayaan ku dubi doonaa. isla socod wanaagsan. saxaabay digaageennii waa kan. sidaas ayuu soo noqday. innaba caadi maaha. ninkii dhadhamiyey unbaa garan kara. isla socod wanaagsan. saxaabay suugadeennii wataas waa diyaar. halkan saliidii baa ii saaran. maxaa la yidhaahdaa digaagaan kusoo dubi lahaa. digaagiina waa kaa. saliidda yara sugaya inay wax yar soo dirto. isla socod wanaagsan. bariiskii waa kan. maxaa biryaani mancaa maanta inooga sakurayaa beri. saxaabay waad ila aragtaan digaageennii xawaashkiisii macal alaabtiisii akaas. sidaas ayaan kusoo wadi doonaa insha allah. isla socod wanaagsan. soo baxa sabtaasa iyo laayka commentiga sheerku waa xagiina videogelina saxaabe kornoo soo qaada. fiidiyoda yaryar ee cusub hala garab qabto. waxaan idin leenahay soo dhawaada. saxaabe suugadeeni waa tan. digsiga ayaa igu yar maadaama digaagiina soo shiilay. maqligan ayaan isugu soo celin doonaa insha allah bismillaahi kariim. isla socod wanaagsan ood ila aragtaan. halkaas ayaan kusoo shubay suugadeennii. allahuma salli calaa maxamed. dabka ayaan saari doonaa. halkan noo maxaan idinku hayaa digaagii. digaagii ayaan kusoo dhex guri doonaa insha allah. aan soo shiilay halkan ayaan isugu keeni doonaa. lagama sheekeeyaan baan idinku uri. saas ayuu u kala daadanayaa. waad ila aragtaan saxaabey. halkaas ayaan isugu keenay. halkan waxaan ku haystaa nature yogurt. qof waliba sidii u yaqaano. waxaad isticmaali kartaa caanaha dhanaan. waxaad isticmaali kartaa nature yogurt-ka haddaad helaysid. caanaha suusaca ah haddaad waddankeennii joogtid. waa kuwaas. dabka ayaan isku yara saari doonaa.
isla socod wanaagsan saxaare. waad aragtaan siduu soo baxay. alaabteennii sidaas ayay soo baxday, isla socod wanaagsan saxaare. waad aragtaan sidaas ayay u leedahay. halkan waxaan ku diyaarsaday wax yar oo kalar ah aan ku hagaajin doono. halkan kalena kalar kale oo binkiya iigu jira. waxaan isleeyahay maanta waa sabti, waa la wada fadhiyaa. naftiin macsuuntaan anigii ciyaalkaygu. markaa waa kaasa maadaamay gabadhigii joogto rooni binkiga yadan aada u jecel, markaa iyada ku casuwan. saxaabey in bariisa ayaan gunta soo dhigay. halkanna suugadeennii ayaa ii taala, waan ku soo dari doonaa insha allah. isla socod wanaagsan. sidaas ayaan ugu soo rushayn doonaa suugada, ma rabi inay igaga badato. طبقي kalena sidaas ayaan u soo saaray, oo dila aragtaan. sidaas ayaan ku soo dhameeyay bariiskii asxaabay, oo dila aragtaan. kalarkii ayaan saa ugu shubayaa. waxaan kale soo qasay kalarkii binkiga ahaa, oo dila aragtaan. saliid ayaan ku soo qasay 1 malqacad haafkeed oo saliid olyoliifa ah. kalarka horena waxaan ku qasay 1 malqacad oo caano ah, caanaha dhayda ah. sidaas ayaan ku dabooli doonaa. waa kaas insha allah. kan ayaan saari doonaa. bacda 20 daqiiqo ayaan isku soo noqon doonaa insha allah. saxaabi waxaan idinka ilaaway oo halkan ii taala waa basashii. aragtaan saxaabay bariiskeennii waa kaas. sidaa ayuu soo baxday qadadeennii. waa meel cad, mid huruudiya iyo mid liimiya iyo mid ah. suugadii aan ku daray bariiska, dhadhankiisana baan kugu dhi lagama sheekeeyaan. cid waliba way cuni kartaa. waad aragtaan waa xabad binkiya iyo xabad haaf cadaan ah, waad ila aragtaan. taas oo kalar ayuu noqday. waa bariis furfuro ah. ay bariis baad karsan kartaan. bariiskan karsanaya waa yasmin rice. daweydinka digaagii waa kaa, salaadkii waa kaa, koob cambaa iyo galaas biyo ah. maxaa ka maqan qofka intaa isku hela? casuumadii uma dhinna baan likooli. khayr ayaan idin dhaafay. asxaabtaan aadka u jecelahay subscribe-ka, like-ta iyo commentiga hayga ilaawina. aad baan idinku mahad celinayaa soo dhaweyntiina iyo garab qabadkiina. inaa hore iisii wadaan ma rabaa. halkaan gaadhay maanta kor iisii dhaafisaan insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.